Algeria waa dal dhaca waqooyiga Afrika, wuxuuna xad la leeyahay dalalka Morocco, Mauritania, Mali, Niger, Libya iyo Tunisia. Waxaana dhanka waqooyi ka saaran badda Mediterranean-ka. Badka uu ku fadhiyo waa wax ka badan 2 milyan oo kiiloomitir isku wareeg ah, taasoo ka dhigta dalka tobanaad ee ugu dhulka weyn caalamka. Wuxuuna noqday dalka ugu weyn Afrika kadib markii ay Suudaan laba u kala jaftay. Sidoo kale Algeria waa dalka labaad ee ugu dhulka weyn dalalka Islaamka. Waxaana ka dhul weyn oo kaliya dalka Kazakhstan. Tirada dadka dalkan waxaa lagu sheegaa 41 milyan, waxayna boqolkiiba 90 dadka dalkan ku nool yihiin waqooyiga xeebta saaran. Dhulka dalkan boqolkiiba 90 waa saxaro ama dhul qalalan. Dadka dalkan boqolkiiba 90 waa Barbar ama Amazigh, halka inta kale yihiin Carab ama dad ka soo jeeda Yurub. Waxayna ku hadlaan luqadda Carabiga ama Amazigha. Nidaamka xukunka dalkan waa jamhuuri, wuxuuna dalka ka kooban yahay 48 gobol. Magaalada ugu weyn ee caasimadda ah waa Algiers, waxaana halka uu ka yimid magaca dalka. 3 Abriil ee sanadkan waxay iscasileen madaxweynihii dalka Cabdulaziz Bouteflika kadib 6 toddobaad dibadbaxyo ka socdeen. Wuxuuna hayay talada dalkan 1999kii. Tan iyo 2013 wuxuu la dhibaatoonayay xanuuno badan, wuxuuna noqday mid fadhiida oo lagu wado baabuurta dadka naafada ah, isagoona dadweynaha ka soo hormuuqday marar dhif ah. Calanka dalkan waa mid ka kooban 3 midab. Cagaarku wuxuu u taagan yahay diinta Islaamka, cadaankuna waa mid matalaya nabadda, halka guduudkuna uu matalayo halganka iyo dhiigga loo daadiyay dalka. Boqolkiiba 98 wax soo saarka iyo dhaqaalaha dalkan ayaana ah batroolka iyo gaaska dabiiciga ah. Waxaana dalkan asal ahaan ka soo jeeda Zinedine Zidane iyo Karim Benzema. Lacagta dalkan ayaana lagu magacaabaa Algerian dinar. Sidoo kale Algeria waa dalka labaad ee ugu awoodda badan ciidan ahaan marka loo eego dalalka qaaradda Afrika, waxaana ka horeeya kaliya dalka Masar. Xayawaanka wadaniga ah ee dalkan waa dawacada saxaraha ahna nooca ugu xajmiga yar noocyada xayawaanka dawacada.